daqiiqadaha soo socda waxaad daawan doontaa cudurka loo yaqaano dilaaga aamusan. Waxa uu yahay qeexitaankiisa, calaamadihiisa, sida lagu ogaan karo, iyo weliba qaybta u dambeysa oo ah sidee loo daweeyaa. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro. Inta aanan u guda gelin cudurka dhiigkarka, marka hore aan wax yar ka tilmaamo qaab dhismeedka wadnaha. Wadnaha sidiisaba waxaa loo kala qaybiyaa 4 qol ama chambers wax loo yaqaano. Sidoo kale waxaa loo kala qaadi karaa ama loo kala qaybin karaa 2 qaybood oo waaweyn oo kala ah bidix iyo midig. Bidixda waxay sameysaa dhiigga ayaa laga bambeeyaa, dhiigga xawaarihiisa cardiac output-ka ayaa ka baxa, kadibna waxaa loo kala qaybiyaa xubnaha jirka. Dhiigga marka uu baxayo oo uu aadayo qaybaha jirka waxa uu maraa halbowlaha. Halbowlahaasi haddii uu yaraado, markaasi waxaa dhacaya qulqulka dhiigga wuxuu ku marayaa si xoog. Intaas kadib waxaa qofka la dhahayaa dhiigkar ayuu qabaa. Dhiigkarka waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc, waxaana kusoo koobi doonaa 3 nooc oo ka mid ah. Marka ugu horeyso, qofka marka la cabirayo dhiigga waxaa laga cabiraa gacanta ama brachial artery wax loo yaqaano ayaa laga cabiraa. Cabirka kadib waxaa la ogaan karaa cabirka qofka dhiiggiisa heerka uu marayo. Normal waxaa la rabaa cabirka dhiigga ee qofka qaybta kore waxaa waaye 120. Dabcan wuxuu noqon karaa 115, 110. Qaybta hoosena waxaa laga rabaa 80 iyo wixii ka yar 75, 70 wuu noqon karaa. Intaas waa inta laga rabo qofka caadiga ah ee caafimaadka qaba. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa horudhaca dhiigkarka ama pre-hypertension. Qaybta kore waxay noqonaysaa inta u dhaxaysa 120 ilaa 139. Qaybta hoosena waxay noqonaysaa inta u dhaxaysa 80 ilaa 89. Qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa stage 1 hypertension ama jaranjarada koowaad ee dhiigkarka. Qaybta kore waxay noqonaysaa 140 ilaa 159. Qaybta hoosena waxay noqonaysaa 90 ilaa 99. Dabcan qaybta kore iyo qaybta hoose waxaan ka kala wadnaa. Qaybta kore waxaan ka wadnaa systolic, qaybta hoosena waxaa loo yaqaanaa diastolic. Qaybta u dambeysa ee saddexaad waxaa loo yaqaanaa stage 2 hypertension ama jaranjarada labaad ee dhiigkarka. Qaybta kore ee systoliga waxay noqonaysaa in la eg ama ka badan 160. Qaybta hoose ama diastolic waxay noqonaysaa in la eg ama ka badan 100. Intaas oo qaybood ayaa loo kala qaybin karaa dhiigkarka. Haddaba waxa ugu daran waxa waaye waxa uu saameyn ku yeelan karaa qofka noloshiisa. Haddii aad isku aragtay ama qof kale aad ku aragtay, dabcan talooyinkan aan soo jeedin doono qaybta dambe ee muuqaalka la soco insha Allah. Haddana marka intaas laga soo gudbo, maxaa keena dhiigkarka? Culimada caafimaadka waxay sheegaan 90% in aanan la aqoonin waxyaabaha keena dhiigkarka, laakiin marka aad loo sii baaray waxaa la ogaaday oo loo kala qaybiyay 2 qaybood oo kala ah primary hypertension. Primary micnaheedu waxa waaye qofka cudur ma qabo, wuu fiican yahay, wuu caafimaad qabaa, laakiin noloshiisa ayay saameyn ku yeelan kartaa. Waxaa ka mid ah miisaanka badan, xididka ayaa yaraanaya oo caabuq ayaa ka dhalanaya, kadib xididka ayaa yaraanaya, markaas qofka waxay ku keeni kartaa inuu dhiigkar ku dhaco. Midda labaad waxay tahay da'da oo qofka marka uu gaaro 40 sano iyo wixii ka badan wuxuu u nugul yahay inuu dhiigkar ku dhaco. Sidoo kale waxaa keena maandooriyaha. Nooc walba oo maandooriye ah oo niyadaada kusoo dhacaya wuxuu keenaa dhiigkar. Sidoo kale waxaa keena dadka xisaab la'aanta isticmaala cusbada, si toos ah u isticmaal ama si aanan toos ahayn u isticmaal, oo waa marka cuntada lagu daro noocay rabtaa ha ahaato waxay keentaa dhiigkarka. Qaybta labaad waxay tahay waa secondary hypertension. Secondary micnaheedu waxay tahay waa qof markii hore xanuunsanaa oo wuxuu ka sheegan jiray kiliyaha wadnaha, oo markaasi qofka waxaa ku dhaca dhiigkar. Tusaale ahaan oo kale, qofka wuxuu ka xanuunsan yahay kilyaha. Marka uu xanuunsado waxaa kilyaha ku yaraanaya qulqulka dhiigga, kadib waxaa la kicinayaa system loo yaqaano RAS. waxaa laga soo gaabiyey waa renin angiotensin aldosterone system. Systemkaas wuxuu ugu dambeyn keenaa qulqulka dhiigga ee wadnaha inuu bato, kadibna uu kor u kaco dhiigga qof. Haddaba sidee baad uga hortagi kartaa ama sidee baad u daaweyn kartaa cudurka dhiigkarka? 2 hab ayaa loo daaweyn karaa dhiigkarka. Habka koowaad waxa uu yahay in aad daawooyinka qaadatid, oo dabcan aanan halkan ku sheegi karin sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa si qaldan. Habka labaad waxa uu yahay sidoo kalena ah talaabooyin aan soo jeedin lahaa si loo daaweeyo ama loo yareeyo xaddiga cudurka dhiigkarka. Waa in aad saxdid hab nololeedkaaga, lifestyle-ka qofka inuu saxo, oo ah inaad cuntid cunto cusbada ku yar tahay, inaad exercise sameysid, inaad socotid maalintii oo
jirkaaga dhidid ka keeni. Qofka dhalinyarada ah ee muuqaalkan daawanayo ee uu waalidkiisa ka xanuunsan yahay, dabcan intii waalidkaaga aad galabtii kursi usoo dhigi lahayd guriga banaankiisa ama aad shaax u keeni lahayd, socodsii waalidkaaga 20 ilaa 30 daqiiqo. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena. sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.